بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkan idiin soo gaaray waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee maanta qodobada ugu xiisaha badan aynu kusoo qaadan doono waxaa qayb ka ah Juventus oo ka baxday heshiiskii ay ku dooneysay xiddiga lagu magacaabo Dibu Emiliano Martinez ahna goolhayaha kooxda Aston Villa iyo xulka qaranka Argentina. Emiliano Martinez ayaa u ah shabaq ilaaliye kooxda ka carabiso Villa-Park ee uu hogaamiyey Unai Emery balse wadahadalo u socday ilaa iyo dhowr bilood. Juventus waxay go'aan ka gaartay inay ka baxdo wadahadalka ay kula jirtay kooxda Aston Villa kadib markii ay dalbadeen qiimo aad u sarreeya isla markaana xagal-daacin badan ay ku sameeyeen heshiiska xiddigani uu kaga bixi karo garoonka Villa-Park. Dhinaca kale Juventus iyadana waxay dooratay ama ay dooneysaa inay soo qaadato goolhayayaal kale kuwaas oo kala tirsan kooxaha PSG iyo kooxda lagu magacaabo Tottenham Hotspur balse xiddiga lala saadaalinaya inay qaadan karto intuu furan yahay xil ciyaareedkan oo Vicario kaasi oo garoonka Tottenham Hotspur shabaqa u ilaaliyo. Roberto De Zerbi iyo maamulka kooxda Tottenham Hotspur ayaa laga filayaa inay go'aan rasmi ah ka gaaraan Vicario haddii uu aadayo dhankan iyo kooxda Juventus ama marwada duqda. Juventus waxay hadda u badan tahay inay u jeesto goolhayayaasha kale sida Zoltan Suzuki kaasi oo asagana xiddig daayar ah lala xiriirinayay balse waxay ka doorbideen inay helayaan Emiliano Martinez iyo xiddig lagu magacaabo Vicario maadaama uu ka baxay heshiiska ay kula jireen ama ay ku doonayeen Emiliano Martinez. Vicario ayaa u ah jooska labaad haddii ay waayaan waa xiddig lagu magacaabo Suzuki. Si kastaba ha ahaatee, Mikhail Mudryk ayaa asagana kula biiray kooxda Chelsea Hong Kong isku diyaarinta pre-seasonka 2026-27. Xavi Alonso ayaa xiddigani doonaya inuu arko tayadiisa iyo xirfadihiisa maadaama 18 bilood oo ka maqnaa kubadda cagta ah balse waxaa la filayaa in xiddigani mar kale loo arki doono cawska macmalka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga rabaa Mikhail Mudryk inuu soo bandhigo hibadiisa ku aadan inuu weli kubaddiisa cagta ah ay wanaagsan tahay inkastoo 18 bilood kubadda cagta weli uusan saarin lugtiisa. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ammaan ka helay macalinkiisii hore ee lagu magacaabo Robert De Zerbi. Wuxuu yidhi wiilkayga waa mid hiboole ah ku wanaagsan kubadda cagta ah. Taasina waxay suurtagelin kartaa xiddigani inuu mar kale dib u soo ifo kubadda cagtana dib loogu arko. Tani waxay go'aamin doontaa mustaqbalka Mikhail Mudryk ee garoonka Stamford Bridge waxaana go'aan ka gaari doona macalinka reer Spain ee Xavi Alonso. Liverpool ayaa iyadana guuldaro xanuun badan kala kulantay dhankan iyo kooxda Newcastle. Kooxdan yiraahdo Leeds United kulan ka tirsan isku diyaarinta pre-seasonka horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Tani ma ka dhigna guuldarada ay kala kulantay Ariola iyo kooxdiisa in ay saameyn doonto horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska balse ciyaarahani waxay fursad siin karaan macalin Ariola wuxuuna si toos ah u abaari karaa meelaha kooxda ay ka jilicsan tahay taasi oo u baahan in la xoojiyo. Ciyaaraha isku diyaarinta mar waliba waxaa lagu qiimeeyaa bandhigga ay sameyneyso kooxda taasi oo door muhiim ah ka qaadan kara xil ciyaareedka socon doona 2026-27 balse kama dhigna guuldaradani inay saameyn togan ay ku yeelan doonto dhankan iyo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa gaartay go'aan xiddiga lagu magacaabo Ferran Torres kaasi oo lambarka 9aad u ciyaarayay kooxda reer Spain ee Barcelona balse Ferran Torres ayaa muddooyinkii u dambeeyay kadib goolkii cajiibka ahaa uu ku dhaliyay xulka qaranka Argentina suuqa iibsiga si xawli ah kusoo galay iyadoo ay daneynayeen inay soo qaataan kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub walow lala xiriiray kooxda Real Madrid aysan u badnayn inuu aadi karo dhankan iyo garoonkaasi Santiago Bernabeu balse heshiiska waxaa weli dardargelinaya macalin Luis Enrique iyo kooxda Paris Saint-Germain kuwaasi oo diyaarinaya dalab rasmi ah inay u gudbiyaan kooxda ka carabiso Sportify Camp Nou ee Barcelona balse Barcelona ma dooneyso inay xiddigani si fudud ku lumiso waxay suuqa ay dhigi doontaa oo keliya haddii Ferran Torres uu ogaado ama uu yeelo inuu ka tago garoonka Camp Nou taasina waxay noqon doontaa mid loo fasaxi doono isla markaana ka tagi kara dhankan iyo safka uu hogaamiyo Hansi Flick. Dhinaca kale kooxda AC Milano ayaa iyadana ka baxday heshiiska ay ku dooneysay inay kaga iibiso xiddiga lagu magacaabo Bernabeu. Rafaelio ayaa laga arkaa dhankan iyo kooxda Rossoneri mid ka mid ah waxyaabaha aan laga taaban karin inkastoo xiddigani bandhigiisa hoos u dhac cajiib ah oo ku yimid kadib markii Pioli uu ka tagay kooxda AC Milano balse xiddigani Bernabeu heshiiskooda wuu soo kansalmay
waxaana la filayaa inuu sii joogi doono Rossoneri haddii dalab rasmi ah uu ka helo isla markaana ay aqbali karto kooxda AC Milanna loo fasaxi doono inuu ka tago dhankan iyo San Siro. kooxda Juventus ayaa la soo wareegtay xiddiga reer Faransa isla markaana weerarka u ciyaaraya kooxda lagu magacaabo Paris Saint-Germain ee Randal Colomwani. Juventus ku biirista xiddigani wuxuu siin doonaa xawaare sare iyo awoodda dhanka weerarka ah, wuxuuna xoojin doonaa safka kooxda Juventus inkastoo uu joogay xiddiga badan oo dhanka weerarka ciyaarayay. Vlahovic ayaa laga yaabaa inuu dhibaato ku noqdo xiddigani, kaasi oo asagana la xiriiriyay in badan kooxaha Arsenal iyo Barcelona inuu aadi karo, balse safka Juventus waxaa kusoo biiray xiddig mar waliba saameyn ku yeelan kara dhankan iyo gool dhalinta horyaalka isku dayataha dalka Talyaaniga ee Serie A. dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa weli waxay rafanaysaa inay isfahmaan xiddiga lagu magacaabo Vinicius Junior. Vinicius Junior ayaa doonaya inuu wadahadal badan uusan la galinba kooxda Real Madrid, wuxuu doonaya oo kaliya haddii wadahadalka uu si rasmi ah u daahfurayo inuu helo mushaar gaaraya ilaa iyo 30 milyan sanadkii si uu usii joogo garoonka Santiago Bernabeu, heshiis cusubna u saxiixo, balse kooxda Real ma doonaysa qiimaha 30 milyan ah, waxay doonaysaa inay siiso 20 milyan oo kaliya. farqiga u dhexeeya waa 10 milyan. Florentino Perez iyo wakiilada kooxda ama yiraahdo wakiilada xiddiga Vinicius Junior ayaa wadahadal u socda, balse Vinicius Junior haddii uu ku qanci waayo inuu sii joogo garoonka Santiago Bernabeu, Real Madrid way iibinaysaa, waxayna ku iibin doontaa 150 milyan. kooxda Arsenal ayaa ku guda jirta xiddigan inay qaadato daha gadaashiisana wadahadal kula jirta xiddigani, balse go'aanka ugu dambeeya waxaa laga sugi doonaa Vinicius Junior haddii uu ku qanco heshiiskaasi wuu sii joogi doonaa, haddii uusan ku qancina 150 milyan ayay siisan doontaa kooxda Real Madrid si ay kaga fasaxaan dhankan iyo garoonka Santiago Bernabeu. dhegeystayaal saaxiibayaal, intaa waxaa ku eg barnaamijkii ciyaaraha ee maanta. waxaan kusoo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa iibsiga laga qoray, kulamada isku diyaarinta ee laga ciyaaray iyo wax waliba ku saabsan kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyo waliba Real Madrid. intaa barnaamijkan barnaamij lamid ah isku kulmi doono, waxaan idin leeyahay salaamaad.